ay heshay hay-adda ugu sarreysa dhinaca xisaabaadka caalamka ee la yidhaahdo Price Waterhouse Coopers. hay-addan ayaa la sheegayaa inay sanduuq ka furan doonto magaalada Muqdisho iyadoo markaasina samayn doonta xisaab celin kormeerna ku samayn doonta lacagaha iyo sida mas'uuliyiinta dawladdu ay u isticmaalayaan. jariirada ka soo baxda waddanka Ingiriiska ee la yiraahdo Financial Times ayaa waxa ay sheegtay in deeq-bixiyayaashu ay arrinkani dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ka codsadeen si looga hortago musuqmaasuqa iyo waxyaabaha isdabamarinta lacagaha ee looga bartay mas'uuliyiinta dawladda ee waddankaasi Soomaaliya. jariirada Financial Times waxa ay sidoo kale sheegaysaa hay-addan ugu sarreysa dhinaca xisaabaadka caalamka ee Price Waterhouse Coopers inay markaasi noqonayso in hay-addani ay markii ugu horeysay la shaqeynayso waddan dagaalo ay baabi'iyeen muddo ka badan 20 sano. hay-addan ayaa waxa ay kormeeraysaa lacagaha deeqaha ee la siiyo dawladda ku meel gaarka iyadoo la isticmaalayo qalab electronic computerized oo aad u sarreeya. dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya talaabadan ay qaaday ayaa u muuqanaysa mid ay ku qancinayso deeq-bixiyayaasha caalamka si ay markaa u hesho lacagihii dhawaantan caalamku ugu yaboohay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya.